الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaynu ka hadlaynaa taariikhdan cusub ee bilaabantay gaalada inagoo ka eegi doona afar dhinac ama aan ilaahnay shan arrimood ta u horeysa taariikhda waxaan leedahay iyo halkay ka soo jeedo, iyo talabaad oo ah xukunkeeda xagga sharciga shariicadeenu maxay ka qabtaa in loo xafladeeyo, iyo daliilada ku soo arooray ee wax ka sheegaya go'aanka arrintaas, iyo raadka had iyo jeer ka dhasha haddii loo xafladeeyo ama adraarta iyo dhibaatooyinka ku jira, iyo xigmadaha loo xaaraantinimeeyey. marka hore waxaa xusid mudan inaynu ogaano taariikhdan la leeyahay waa taariikhu miilaada ciisa. nebi ciise ayaa wakhtigan dhashay ma jirto oo nebi ciise muu dhalanin calayhi salaam. waxaa arrintani ay ka soo jeedaa nimankii dabcaabudka ahaa ee roomanka ahaa, ciidihii ay samayn jireen intaanay diinta kiristanka qaadan reer yurub ayuunbay halkii ka sii wadeen. marka waxaanay ka soo jeeddaa ama waafaqsan tahay ciid ay lahaayeen nimankaa dabcaabudka ah oo la odhan jiray bustariina, waxaanay ahaayeen ilaahyo ay caabudi jireen reer yurub iyo greegu intaanay diinta nebi ciise qaadan. waxaa had iyo jeer ciidaha nasaarada ka mida ciidan iyada ah in xumaan lagu ciiday iyo xaaraan sharciyada samaawiga oo dhami ay diideen. tafaa'ul qaldan bay ku socdaanoo qurun ku salaysan oo dahaarada iyo nadaafadda ka soo horjeeda. maalan waxyaabaha qoraalada ugu jira waxaa ka mid ah habeenkaa isagaa in had iyo jeer boodhka la xaadhaya aan bannaanka loo saarin lianlaa yadhaba canhum alxadu saciid calaa xaddi maa qaaluu, si aan nasiibka iyo calafka wanaagsani inoo dhaafin habeenkaa wixii guriga laga xaadhi lahaa ayaan la saarin. wakadalik qasdu athiyaabi wasuxuun fi dalika alyowm min ashu'mi, waxay leeyihiin maalmaha aynu xafladaynayno dharka iyo weelka yaan la maydhin. halkay ku daba leeda waad garan karaysa. marka la soo ururiyo in fara badan oo ka mida kuwooda wax qoraa waxa ay leeyihiin waa raad ku dabale dabcaabudkii hore iyo ummadii hore qoraxda iyo dayaxa caabudi jiray. waxay wax ka qoraan baabka ah al-usuul alwathaniyatu fi lmasiixiya, raadadka faraha badan ee dabcaabudku ku leeyahay diinta masiixiga. marka arrintaa inaynu sidaa ogaano weeye. la iskuma waafaqsano, iyagu qudhigooda iskuma waafaqsano sanadku ahaa, bishuu ahaa iyo maalintu ahaa dhalashada ciise. marka halkaa waxaa ku hadhaya inuu yahay miilaad nebiyullaahi ciise calayhi salaam. culimada islaamku arrintaa markay sii daraasaynayaan ay eegeen aayadaha ka warramaya dhalashada ciisena waxaabay leeyihiin wakhti qabowba ma dhalanin nebi ciise. oo suuratu maryam ka warramaysa dhalashada nebi ciise markuu ilaahay la hadlayay maryam waxa uu wahuzzi ilayki bijidci nakhla tusaaqid calayki rudaban janiya. markii ay foolanaysay ama dhashay baa lay geedkan timirta ah sidaa u ruux, waxaa kaaga soo daadan doona midho wanaagsan oo aada intifaacsato. waxaa la ogyahay geedka timirtu wuxuu dhalaa xagaagii iyo wakhtiga kulaylka sayfka ah. qad jacala rabbuki taxtaki sariya, malagu markuu u dhawaaqayo waxa uu leeyahy ilaahay hoostaada wuxuu yeelo ku hoos maraya biyo qulqulaya. meeshuu ku dhashee baytulaxam wakhtigaa waa barafba, biyuhu way fadhiyaanba. marka waa arrimaha markhaatiga ka ah caddaynaya xataa wakhtigii lagu sheegay inuu ka fog yahayba wakhtiga dhalashadu. taa markaynu halkaa kaga nimaadno waxaynu kusii xigsiin lahayn mowqifka sharciga ah
iyo shareecadeennu waxa ay ka qabto qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ku diiday gaalada in muwaalaad lala yeesho gacaltooyo garabsiin ku dayasho yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin dadka shahaadanaya ilaahay uu yeedho waxau ihi dadkaa gaalada ah yuhuud iyo nasaaro weliba xigtanimo iyo xidhiidh hala yeelanina diin ku salaysan cidda sidaa samaystaana iyagu ka mid yahay arrin sahlan maaha gaal baa lagu daro liiskiisa lagu raaciyo wax musiibo weyn weeye ilaahayna ma hanuuniyo dadka dulmi falayaasha ah waxaa kaloo qur-aanku uu diiday tashabuhooda in la isu egeysiiyo waxay falaanba la falo bixi diin iyo dhaqan iyo akhlaaq ku saabsan ilaahay baa wuxuu uhi walaa tattabic sabiila almujrimiin nebi ambiyada ka mid a baa ilahay uhi waxaad iska ilaalisaa dulmi falayaasha dariiqooda inaad marto waa lagu halaagsamaaye nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam raacitaankoodu inoo diidayo waxau uhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum qofka qolo isu egeysiiya iyagunbuu ka mid yahay markaa sidaa u ciideen haddaad u ciiddo qad tashabbahta minhum iyagaad isu egeysiisay marka inaad gaal isu egeysiisaa inaad iyaga ka mid noqonaysaa kolka xadiidkaa nabiga laga duulo sala allahu calayhi wasalam wuxuu sii xusayey nabigu musiibooyinka muslimka ku dhici doona aakhiru zamaanka inay ka mid tahay iyagoo daba carari doona dadkaa shisheeye لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه على معنى الحديث والله إن إذن دبع عرري دونتان قال يا قالوا نبي قال ويديه واحد من يهودي النصارى ذا هابوا ضدك الضوف سدا سدا أوهن كويني بوا إيجا ومن الناس إلا أولئك مركا هدي تلابا قادان إيه هدي أي taaka qaadaan iyo hadday ka sii badiyaan socodkaba way idin dabageli godka maansalugalayda cidhiidhiga hadday galaanna way idinka dabageli buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa adiga arkaya dharkoodii iyo dhaqankoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii inay da-yarteennu ku dayanayaan waa digniinuu nabigu bixinayo sala allahu calayhi wasalam ummadda nabigu wuxuu ku rabaynayey in la khilaafo iyaga maadaam ibtila iyo aafa ay u taagan yihiin wuxuu nabigu uhi khaalifu almushrikiin wawafiru llixa waxfu shawaarib ina alyahuuda waannasaara laa yusbiquuna fiiha khaalifuuhum mushrikiinta khilaaf oo yahuudiya nasaarada khilaaf oo shaarubahana xiira garhkana sii daaya isagoo cad bay la baxaan garhka idinku caseeya oo midab ku sameeya aan madowga ahayn buu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam culimadu marka ay ka warramayaan in ciidooda lala yimaado la waafaqo waxay isla waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay oonay sax ahayn in lagu raacaa waxay daliishadaan aayaddaa ilaahay uhi waaladiina laa yashhaduuna zuur ma xaadiraan oo goobjoog ma noqdaan mu'miniintu wixii dembiya ee gaaladu ay samaynayaan goobjoog ma noqdaan lama xafladeeyaan kuma raacaan nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam madiine wuxuu tegey iyadoo ay leeyihiin laba ciidood midi waxay ahayd ciidan la yidhaahdo nayruushka ee iminkaba reer miyigeennu ay sameeyaana dabshidka u yaqaanaan neef adhiyana way qalaan caleebo qoyan baa guriga xaggiisa hore laga lulaa dabna waa la shidaa habeenkii dhaqankaasay ka soo jeedaa dabcaabudka iyo ciid kaloo la yidhaha mahrajaan reer madiinu uhi maxay ahayn labadan ciidood waa laba ciidood aanu iska lahayno waanu dabaal degnaa bay idhaah nebigu wuxuu joojiye ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ka fiican oo labada ciidooda ciidul adxa wa ciidul alfitr ciidda ramadaan iyo ciidda xajka ayuu ilaahay idinku bedelay labada raaca islaamku wax ciidaa labadaasuu leeyahay waa tamayus iyo in gaar looga baxo shisheeyaha iyo dhaqankooda oo aan lala xafladayn siduu nebigu farayo sala allahu calayhi wasalam waxaa jirtay nin asxaabiya ayaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah markaasaa wuxuu ihi nadar baan galay inaan meesha buwaano la yidhaahdo wax ku qalo geel su-aaluu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxau ihi hal kaana fiiha wathan miyuu jiraa sanad meeshaa lagu caabudayaa hal kaana fiiha ciid miyaa ciid gaaladu ay leeyihiin halkaa lagu samayn jiray intaa haddaanu midna jirin
nadarkaaga waad oofin kartaa laakiin haddii shaqooyinkaa gaalada meesha lagu qaban jiray ha ku raacin buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa ummadda muslimiinta inay leeyihiin istiqlaaliya waa ummad gaarkooda u taagan oo aan ahayn doorkoodu maaha tabaciya inay dad dabagalaan maaha waa in iyaga lagu daydaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaasuu u xusayey mar walba wixii iyagu ay la imanayaan inaynu khilaafno saxaabadiisa markaynu nimaadno iyaguna halkaasay ku tarbiyad qaateen way ku daba taagnaayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam cali ibna abi aalib allaha ka raali noqdo ayaa maalin maalmaha ka mid ah ninbaa hadiyad u keenay wuxuu ihi hadiyaddani maxay ahaydoo wuxuu ihi hadiyatu yowmi nayruus maalinkii dabshidka hadiyadihii la isa siin jiray weeye markaa cali waxa uu ihi fasnacuu kula yowmin fayruusan wanahaa almushaaraka wagayara alisma wuxuu ihi war maalin walba hadiyad isa siiyo iska daaya nayruuskanoo fayruus isticmaala buuhi macnaha magaciina wuu bedelay wakhtigiina wuu bedelay hadiyaddu maaha buuhi muslimka hadiyad ku kooban nayruuskaasi nayruuskana iska dhaafa hadiyaddiinnuna wakhti walba ha socoto sidoo kale wax tahniyada oo dadku ay istahniyadayn karaan ciidda ma bannaana liannahu markaad qof wax ku tahniyadaynaysa macnaheedu waxa weeye inaad ku faraxsantay jiritaankiisa culimaduna saasay isku waafaqeen gaalada iyo waxyaabaha u gaarka ah inuu xaaraan yahay in lala oogo iyo ciiddooda in lala xaadiro cabdillaahi bnu cumar waxau ihi man banaa biardi lmushrikiin wasanaca nayruusahum wamahrajaanahum watashabbaha bihim xataa yamuuta xushira macahum yowma alqiyaama xadiidkaas aharkaasoo sanadkiisu wanaagsayo bayhaqi warinaya ibnu cumar wuxuu leeyahay qofka gaalada dalkooda la dhisa ciidahoodana la xaadira ee iyaga isu egaysiiya halkaasuun kala miisee la fadhiya maalinta qiyaamaha ilaahay iyagu la soo xaadiriyaa waa axaadiidu fasiranaya nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo waxa uu leeyahy walaa tadkhuluu cala almushrikiina fii kanaa'isihim yowma ciidihim faina sakhata yanzilu calayhim gaalada kaniisadooda ha ugu gelina maalmaha ciidda cadho allah ku soo degaysa cadhadaa ku soo degaysa si aanay idinka idiin gaadhin ciidahooda iyo kaniisadahooda ka fogaada waxaa jirta xigmadda haddaba xigmadaha loo diiday waa maxay aragna xukunkeedii oo sharci ahaan ma bannaana xaflada noocaas iyo baadhiga iyo dabaaldegaas xigmadaha loo diiday kow waxay sheegaysaa xubuhum in la jeclaado iyaga oo qofkaad jeceshahay siduu sameeyaad samaysaa wahaadaa maxduur in gaalaad jeclaato diintiisa iyo dhaqankiisa ku jeclaatana waa xaaraan waa xigmadda laynoogu diiday xigmadda labaad waxa weeye kahratu lfasaad waxa meesha lagu hayaa waa diin la-aan iyo dadxumo iyo dhaqan aada u xun sida khamriga gaalnimo sino durbaan la garaaco rag iyo dumar isdhexbooda khayr baa lagu hayaa waxaasaa lagu hayaa waxa saddexaad waa daatu dalaalaatin diiniya dareen diineed baa meesha ku jiro dhalashadanina diin bay u taagan tahay saliibkan ama karooskan ay leeyihiin ciisa dhintay isaguna wuxuu u taagan yahay diin oo de waa kuwan caabudaya marka wixii diimahoodaana waa laga fogaanaya arinta afraad waxa weeye tadliicun lilhuwiyati alislaamiya abtirsiimadii aynu lahayn islaamka ayuu qofkii ka durkayaa ummado shisheeye aragtidoodii iyo waxay aaminsanaayeen uu kula abtirsanaya innaguna sidaa horeba aynu usoo sheegnay wanaagga innagaa laynaga dayanayaae ma nihin xumaanta dad cid kaga dayda arrinta shanaad waxa weeyaan yataqalladu bina awlaaduna caruurteenna inagu dayanaya oo markay arkaan inagoo wax samaynayna waxay leeyiin aabbaa sameeyey awoowaa samaysay ayeeyaa sameeyey weligayba dhaqan noo ahay sidaa reer miyiga imika haddaad tidhaahdo war waxaan iska daaya waa ciiddii gaalada waxay ku odhanayaan waa soo jireen caado la gooya cadho allay leedahay halkaasay kaala hadlayaan markaa si aan dadka aynaan inaga dambeeya tusaale xun ugu noqonin wixii xun la fudaysan maayo waayo dhaqan buu noqonaya iyo caado arrinta lixaad waxa weeyaan iyaguba dee ciiddeenna ina lama ciidaan oo ma aloosaan bal way ku dheeldheelaan ciidaheenna iyo shacaa'irkeenna iyo calaamadaha waaweyne diintana ay leedahay way ku ciyaaraan oo way ku dheeldheelaan maxaa adiga ku daba dhigay markaa
adigaa doorka tusaale inaad noqoto lahaa laakiin tabac inaad noqoto iyo nacamle may ahayn idan markaa waxaynu leenahay hadday dowlad tahay hadday hay-ad tahay haddii ay dhallinyaro tahay rag iyo dumar waa inaynu kala garannaa waxa ummadaha shisheeye laga qaadan karo iyo waxa lagu diidi karo waxaad ka qaadan kartaa wixii horumar iyo adduunyada wax la soo kordhinaya maslaxadda ummadda wax u soo kordhinaya laakiin wixii mafsada ama diimahooda iyo dhaqankooda ku saabsan fi alafraaxi waalaxzaan wakhtiga la farxaya iyo wakhtiga la murugaysanya marka tacsida marka arooska marka xafladaha waa inaynu aada uga fogaanaa dhibka dadkeenna haystaa waxa weeye waxbay arkayaan waddamada gaalada ay wax ku arkayaan ama dadka gaalada waxay sanayaan kanna waa lagu ilbaxaa way samaynayaan kan kalena waa lagu ilbaxaa waa lagu reer magaaloobaa ayaa halkaa dad badan la gaadhay marka qofku wixii uu ka shakiyana waa inuu weydiiyaa culimada si uga jahli bixi karo marka iyada oo laga yaabo dadka qaarkood inay xalay xafladeeyaan qaarna caawa xafladeeyaan xukunkiisa sharciga ahi waa caynkaa weeyaan wujuubu lbayaani waqti alxaaja wakhtiga loo baahan yahayna in wixii la caddeeya muhiimadeeda ay leedahay allah inagu anfaco allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة